بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. anigoo ku hadlaya afka dhalinyarta aqoon-yahanka Somaliland, waxaan halka ka salaamayaa reer Somaliland dhamaantood. waxaan leeyahay nimca inoo soo kordhay, nimcadii Ilaahay aan ka baryanay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo kordhiyo oo inoo badiyo. Ilaahay aynu ka barino isaga qaadiraya. taas wata labaad, waxaan leeyahay Somaliland maanta maalin ay ka wanaagsan tahay ma jirto. adduunku waxa weeyaan waa 99 ma boqoloobo, bini'aadankuna ma dhamaystirmo, xunbaa ka maqan. wadankeenu ma oran karo weligii wuu dhamaystirmayaa, laakiin xunbaa inaga maqan. haddii in badan ay sheegayso wax xun, waxa jiray wax badan oo wanaagsan, marka labadaas waa isbarbar soconaya. maanta marxaladdu wadanku ku jiro, anigu fikir ahaan anigu magacayga ka tagay oo ah injineer Maxamed Yuusuf Jaamac, injineer Henni, maanta meelu ka wanaagsan yahay ma jirto. markaad eegto waqtiyadana sanadba sanadka ka dambeeya dib waxba inoo kordhaya, horumarku soconaya, waxba dhibaatooyinkuna soconaya. laakiin waxaan Ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala inuu dhibaatooyinka inaga soo jabiyo, wixii dhibaatooyin ugu socon Ilaahay inaga duwo. taas wata maanta dhowr marxaladood baan doonaa halkan ka iftiimiyo. wata koowaad, waxaan noo bilaabmay fursado wanaagsan oo aan oran karno fursado maanta waxa weeyaan muhiim ah oo wax ku ool ah, oo ah inaynu taageerno meeshii wax naga soo geliyaan dadka reer Somaliland waa inay taageeraan. qofku ma aha inuu mucaarado la soo taagmo. anigu garanay qaar bay oran doonaan ma dawladda wax ku siisay, waxa weeyaan wax noqotay maxaafid, qaar baa oranay macaalid baan ku ogeeyay macaalidnimadii maaday. laakiin waxa weeyaan aqoontu waa inay shaqeyso waqtiga la joogo lama baahna nin jaahilo si bur qaato yiraahdo waxa weeyaan haddaan sidaan nahay waxba kama soconay arrinka ama waxba kama jiraan, way ka jiraan maalin waa inay soconay wax walba. anigu waxaan taageersanahay maanta shidaal qodista, waan taageersanahay dekada berberayna maalgashadana waan taageersanahay. waxaan taageersanahay dhaanka xunba weynaha la sameeyay, waan taageersanahay sagana in abaaraha la isku kaashadana oo maanta abaarihii wax weyn ka qabanay waxna weyn oo dhimeynay in la dhamaystirana waan taageersanahay. laakiin waxa leeyahay waxa weeyaan dawladda inaga iskale, cid kale ma leh, waa dawladdeena Somaliland. wixii dhalin ay leedahay waxa weeyaan waa la saxayaa, wixii wanaag ay sameysana waa lagu bogaadinayaa, oo marka aqoonta hadis weeyaan. waxa weeyaan waxay dadku yiraahdaan mar walba shidaal qodis baan sameyn doonaa, wadankeena macdan baa ka buuxda, macdantaasna la soo bixin doona goormeen la soo bixina weeyaan. war waxa weeyaan adduunku waxa weeyaan waa laba jeer oo war marad garan weydo iyo marad gaari weydo. waxa maanta hadaynu garan weyno dawladeen gaari mayno. marka taada ilmahayga tobnaad baa intifaacsanaya, adigu haddii maanta lagu soo saariyo maxaad ku diidaysaa? dee imaaraadka waa taqaaneen 30 sano ama 20 sano ka hor tasxaraheed, maanta waxa meesha adduunka ugu horumarsan waa shidaal. hal shidaal bay ka faa'iideysteen, macdan lagama helo. waxa weeyaan dhul ma habar waa qoroob helo, ma aha waxa weeyaan dhul dedihan oo wax kale ku dahin, waa shidaal baa laga helay. shidaal bay maanta ka kooban. war maxay noo diiday isagoo shidaalka inaan haysano oo haddana Ilaahay dhul wanaagsan na siiyay oo xeeb iyo waxa weeyaan iyo dhul daaqsimeed iyo dhul wanaagsan bale, maxay noo diiday? marka waxa leeyahay shidaalka wadanka laga qodo, waliba bari baa lagu horeysiiyay. waxaan leeyahay xagga xeebtan loo kaco, xaggaas aad u dihin, galbeedka la tago, bariga fog hala tago, xagga koonfurta loo kaco. waa Somaliland, xadka Somaliland marka la eegayo oo aad baan taageersan shidaalka la baaro. hadhow marka waxa weeyaan in shidaalkaasi la helana meel laga helana wax leeyahay war dadkeena war taageera. war waxa weeyaan ka ugu yar ee waxa weeyaan wax ka faa'iideeya waa ka xamaalka, ka ugu sareeyna waxa weeye ka maamulaya shirkadaha iman doona ee petrolka noo soo saar doona. wax badan ka faa'iideena. anigu waxaan hubaa 4 milyan baynu nahay, wax ka badan ka faa'iideeno oo 4 milyan bayna ka fidnato shidaal kaliya magaalada la nooga soo saaro ma hub kaliya laga qodo in inteenaas inay ka faa'iideen doonto. arrinka dekada berbera
waynu diidanin horta bilaadinku sidiisa wax cusub oo diidaa maanta haddii wax cusub la quraahdo bal eeg naga daabadana soo ka shaqeysa dadkuna waa iska caynka wax kasta oo cusub waynu ka soo horjeednaa laakiin markaynu hadhow wanaagiisa aragno waynu taageernaa marka waxaan leeyahay dekada balba markii hore waynu diidanin maanta waynu taageernaa waa gobonimo ma leeyahay war wanaageeda wax kasta oo wanaagsan markii la noo keeno bal horta yeena ku degdegayna oramo ogolan iyo maxaa aan ka faa'iideynay horta aan eegno baan leenahay bal waxaan horta aan eegno oo loo fiirsado yaan la diidin kadib berbera waa la diidanaa maantana waa la yeelay oo reer saaxiib way bogaadinayaan anaguna waan bogaadinaynaa haddaan nahay aqoonyahanka reer Somaliland waxaa la yidhi 160 ma qaadan jireen tusaale ahaan xagga lacagaha ka soo qaado ama finance-ka dekada berbera qofka mushaarka wuxuu qaadan jiray 160 maantana 570 baa looga dhigay qofkii 160 ka qaadanay taa macnaheedu waxa weeyaan 300 baa boqolkiiba 300 baa la kordhiyay waa 3 jibaar lacagtu qaadan jiray lacag wanaagsan bay qaadanayaan waxa weeye horumar soo kordhay warsaas oo kale aynu bogaadino saldhigga berbera isagana waxa weeyaan la saxiiyay ee la soo saxay waxaan leenahay kaan hala taageero kaan wax badan baan ka faa'iideynaa kaliya tadee inagu shaqaalahan waxa weeyaan hadii ayna shaqaale ka heli kareen mashaariicda la soo saxay la yiri waxa weeye waxa ka faa'iideysan tan in la taageero wadada kaliya hadii la nooriso wax ka wanaagsan ma jiro wadalaan bayna haysta oo taqaanaan dhibaatada ka soo gaadhay geeridii naxinta lahayd ee u dambeeyay labadii dumar ee walaalaha tiba wada xumo war wadada berbera xataa time-ka dhasan hadii la noo hagaajinayo aanu taageerno bari aan jaamacadda dhigan jiray ayaa waxa nin ingiriiska ka yimi oo nin yaro ingiriis ah ayaa nagu soo boqday jaamacadda Hargeysa jaamacadda Golis marka wuxuu yiri wuxuu ka soo degay bariga eerbadka berbera shaqeynaya dadna wuxuu arkay bariishkan yaro iyadoo habeenkii horta uu hoyday halkan markuu maalintii soo dhaaf ayaa daad badan roob badan baa daayay dhowr saacadood buu taagnaa marka ilaa maqrib la gaadhay dabeetan jaamacadda lecture buu nooga jeeday wuxuu yiri Somaliland markay soo tagto waxa dhisan kar weeday bariish 10 talaabo ama 10 mitir waxa weeye waa ceeb weeyaan qofka bilaadanka wuxuu arkay shay adigoo maalin walba dhex jooga waa inaad aragtoodan la yeelato marka waxa weeye wadooyinka waa muhiim mashaariica shaqooyinka kalena waa muhiim ee laga helayo sida wararka inagu cadeynayo ama heshiisyada lagu soo saxeexayba waxa kale oo maanta aan aad iyo aad u jecelahay bogaadiyo dhaamka xunba weyne oo isaguna muhiimad weyn oo leh waxa weeye roobku markuu inoo daana waxaan nahnaa وين كراسنا رنتي وحنا هنا ومحد قدن يو إيش يو وحنا بيننا هنا ورحمة الله نسي لكن حين نقول أفا توح صور رعاة بربرو كلا حتى نقول كقطنا يوم برت ولا أبار بيلا أن قارب أبار وبنتي وواحد كان حويا مركا ما تدام كي كواد بيننا حري بيا بدن بيننا كده سمية وهدي بيا لنا قبته حتى نحوي كفايدة سجدين الله سمعيه أو عيال يقول نظيف بيها لو كان نظيفية دبتنا وحويا لتشيدو نقالين كله تشيدو توحسو كليا maanta lagu fahmo xamba weyn la xiray kaasna waxa leeyahay horumar wanaagsan oo soo kordhay abaari waxaan leenahay dadkeenu wali dadku jeceysan xoolo waa ka bixin abaarihi yaan la ilaawin war qof walba waxaad bixin karto dad ilaahay sadaqay ilaahay wala bax taasina wata dhalinyarada reer Somaliland anigu aan ka go'ay nafteedina fihin waxaan ku bogaadinayaa war wadanka imika maanta uu jaan qaadaya aan la jaan qaadno waa reernimada iyo xumaanshiyaha aan ku fogaano maanta yaan kala dilin anaga xisbiga wadani kulmiye xisbiga wicid saddexdeen xisbi nin walba ka doonta galo codeen laakiin wadanku wadankeeni wanaaga la taageero xumaanta laga soo jeesto waxa ilaahay ka bariya Somaliland in ilaahay guul ka dhigo bari ka maalna inaga xukunka qaban doona hadii la helo inagoo dhalinta reer Somaliland oo aan reer ahayn oo aan qabiil ahayn war waxa weeyaan mid baa laga midnaysaa aan mid ka midnaysnaano war wadanka inaga iskale inaga u harayna aan wadanka taageerno wixii wanaaga wixii xumaanana aan ka soo jeesano dawladdu waa dawladeeni wixii xumaan waxa leenahay waa naga daaya inta xumaashiya wada inta wanaaga wada waxa leenahay ku socda wanaaga noogu wada ilaahay Somaliland oo barwaaqo ah oo mid ah oo nabad ah ilaahay hayno daayo marka kale magacayga in ku celiyo waa Maxamed Yuusuf Jaamac injineer Henni jooga magaalada Hargeysa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت wax ka badan ma inta Soomaaliya maanta idin wadaagay aad baad mahadsantihiin.